ciid wanaagsan daawadayaal halkan waa goobjoog ku soo dhawaada warka qodobada aan idin haynana waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay maalinka koobaad ee Ciidul Fidriga shacabka magaalada Muqdisho ayaa ciiday maalinkii koobaad xilli wadooyinka magaaladu ay xiran yihiin waxaad kaloo kala socon doontaan warka goobjoog magaalada Buuhoodle ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa farxadda maalinta ciidda qodobada kalena waxaa ku jira madaxweynaha Galmudug أحمد علي جيل حاف أيها همبلية أدري شعب كصوماليات جارهان دجاجنا الجلمود وكونول قضبضة كله واحد كجرب وصاصو مالكي كوباد واحد دتك أدريرين فرحة عيدة يدو ملك الدون أو مجالات أسنة دتك يسوي صوب بحال وحن كلون يدين هنا شعب كونول مجالات بلدوينية قبل كهيران أيها ما أنت عيدي مالكي كوباد عيد الفطر جاء قضبضة كله واحد كجرا wadamo badan oo dunida ah waxa laga ciiday maalinta koobaad ee Ciidul Fidriga qodobadaasi intaan ku guda jirno warka goobjoog wixii ugu soo kordha ayaa la socon doontaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan maalinka koobaad ee Ciidul Fidriga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo salaada ciida wax kaga dukaday masaajidka Isbahaysiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in fadliga bishii barakeysanada Ramadaan ee la soo soomay iyo maalmaha farxadda ciida iyaga oo isbiirsanaya loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay iscafiyaan kana digtoonaadaan wax kasta oo amniga wax u dhibaya sida uu yiri sanadkiisana inuu ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad cibaadasan iyo nabad waarta ilaahay baa mahad leh alxamdulilaah ducadeena ilaahay waa noo aqbalay bishii ramadaan oo walwalka badan aan ka qabnay sidii caadada ahayd sanadihii la soo dhaafay inay dhacaan qaraxyo badan ilaahay waa naga badbaadiyey alxamdulilaah ilaahay baa mahadiis iska leh waxaan u mahad celinaynaa ciidamada qalabka sida ciidamada xasilinta oo habeen iyo maalin u soo jeeday habeenkii dhaxanta iyo kaneecada subaxdiina qoraxda u taagnaa inay ka difaacaan qolooyinka horarka ah oo nabadiidka ah oo caadaystay ummadeenna iyo shacabkeena inay laayaan alxamdulilaah ilaahay waa noo aqbalay inaynan arag sidii caadadu ahayd qolada nabadiidka ah in dhiiggeenna uu jidadka qulqulo dhimasho badan dhaawac badan iyo burbur badan waxaa mahadda kale iska leh shacabkeena Soomaaliyeed oo runtii muujiyey dulqaad badan iyo la shaqayn badan oo ay la shaqaynayaan ciidamada qalabka sida inkastoo tacaddi u jiri karo inkastoo culays u jiri karo inkastoo uu dhib jiri karo isu socodka laakiin annagu waxaan ka fakaraynaa ciidankeena u taagan yihiin in dhib kale u dhaco waa xaqiiqa ciidankeennu inay u baahan yihiin tababaro waa xaqiiqa inay u dhintaan ama u dhaawacmaan maalin walba waa xaqiiqa in loo baahan yahay ciidankeenu inay ka duwan yihiin kuwa argagixisada ah oo loo baahan yahay ciidankeenu inay u naxariistaan oo ay gargaaraan shacabkooda oo ay gacan qabtaan insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waa ka taxadaraynaa wax alla wixii caqabada noocaas oo kale hadduu eebba yiraahdo annagoo tababaro siinayna annagoo qalab fiican siinayna si shacabka aysan dhibaato u dareemin qolooyinka horarka ah oo dhibka ummadda ku hayana aysan hamigooda ama himiladooda ama waxa ay doonayaan inay ummadda Soomaaliyeed ku hayaan oo ah argagax inaan ka hortagno hadduu eebba yiraahdo waxaan leeyahay qolooyinkaas argagax ummadda Soomaaliyeed ku haya ee shabaabka ah inay ka waantoobaan dhibka ay ku jiraan waxa ay ku kacayaan maalin walba inay ka waantoobaan oo ilaahay soo hadeeyo oo waxa ay leynayaan iyo waxay dhibayaan iyo dhiigay qubayaan iyo dhaawac ay sameynayaan iyo burburka ay sameynayaan inay tahay dad muslimiin ah oo Soomaaliyeed oo walaalahooda ah inay ka waantoobaan
oo ay ku soo biiraan dadka intiisa kale oo ay nabadda qaataan marar badanna waa u sheegnay waana ka waaninay insha allah waxaan rajaynayaa inuu ilaahay soo hadeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo nabad buuxda ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo colaad la'aan ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo barwaaqo ummadda Soomaaliyeed waxaa loo baahan inay iscafiso inay gacmahaas qabsato inay isu gargaarto inaan ilaahay u noqonno insha allah annaguna ka dawlad ahaan waxaan samaynaynaa wax alla wixii karaankeenna ah oo aan taas ku suurtagelin karno wax kasta oo aan ku dhiirigelin karno ciidamadeenna wax kasta oo aan shacabkeenna ku dhiirigelin karno waxaan ka codsanaynaa shacabka iyaguna inay gacan ka siiyaan ciidanka qalabkiisa inay gacan siiyaan oo ay la shaqeeyaan waxaan ognahay ciidanka keligood ma aha wax mas-uuliyadda ka saaran tahay difaaca dalkan iyo dadka qof walba oo Soomaaliyeed mas-uuliyadda ka saaran shacabka waxaa la rabaa inay si dhow ula shaqeeyaan oo haddii arkaan si looga hortago qaraxyadan iyo dhibkan iyo nabadxumada looga hortago waxaa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed dadweynaha waxaa looga baahan yahay inay garab ku siiyaan dawladda garab ku siiyaan ciidamada gacan ku siiyaan oo ay la qaybsadaan wax alla wixii macluumaad ama information ah ciidamada si looga hortago aysan u dhicin waxyaabaha u ah gaarka magaalada Muqdisho oo qaraxyada joogtada ah waa ognahay waa nagu dhex jiraan waa nagu dhex dhuumaalaysanayaan waa ognahay inay ku farxayaan dhibka iyo dhiigga daadanaya inay ku farxayaan waa ognahay oo maalinta ay 10 qof dilaan iyo maalinta 100 qof dilaan iyagu inay u tahay feesto iyo farxad inay u tahay waa ognahay intaas oo idin laakiin waxa loo baahan yahay annaga naftigeena guud ahaan loo isku duuban dawladdii iyo shacabkii annagoo isku duuban dadweynihii iyo dawladdii iyagoo isku duuban waxaa loo baahan yahay sidaan ugu hortagi lahayn inaan qof walba uu mas'uuliyad iska saaro waxaan ilaahay ka baryaynaa guud ahaan dalkeenna inuu nabadda ku soo dabaalo waxaan ilaahay ka baryaynaa meel kasta oo Soomaaliya ay joogto inuu soo dhaweeyo waxaan ilaahay ka baryaynaa dhiigga daadanayo bilaa macnaada oo meel walba ku qubanayo ilaahay inuu naga joojiyo ummadda Soomaaliyeedna ay la timaado xigmad iyo maskax wixii dhiman karay waa dhinteen wixii dhaawacmi karay waa dhaawacmeen dhibaatooyinkiina soo gaaray dib loogu noqon maayo in la iscafiyo oo wax alla wixii khilaafaada lagu xaliyo wada hadal iyo maskax lagu xaliyo oo gacan ka hadal iyo ficil iyo wax ilaahay khaalib ka ahayn aan la isku dayin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shacabka magaalada Muqdisho ayaa ciiday maalinkii koobaad iyadoo wadooyinka magaaladu ay xiran yihiin waxaana shacabka waan meelo kala duwan kula kulanay ay inoo sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin xirnaashiyaha wadooyinka iyadoo waliba lagu guda jiro xilliga ciida shacabka magaalada Muqdisho oo goobjoog la hadlay waxa ay sheegeen in ay ka dalbanayaan dawladda Soomaaliya in wax laga qabto wadooyinkan xiran oo xal kale la helo maalin ciida oo waxaan ku ciideynaa ciidii wanaagsaneed ee ciidul fidriga waxaana haystaa Cabdirasaaq Nuur oo degan Bulxuway waan lugeynaynaa waayo wadooyinka ayaa xiran sida jacanahayn waxaan maanta inoo tahay ciid waxaan halkan ka salaamayaa adeerkay macaan ee Bashiir Nuuriro eedada Safiin Nuuriro Shamsin Nuuriro ilaahay ku naxariisto Safiin Nuuriro waxaan halkan ka salaamayaa eedada Nasri Nuuriro oo joogta Jarmal waxaan halkan ka salaamayaa walaalkay Yuusuf Suleymaan Siro oo jooga Jarmal walaa ciid wanaagsan aan ilaahay kulligiina iyo familkeena inta ka tagay iyo dadka muslimiinta oo dhan Maxamed Yuusuf Cilmi kana mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho maanta ciidul fidriga dhammaan ummadda muslimiinta aad baan u salaamayaa ciidul fidriga awgeed waad arkaysaan maanta dhibaatada ka taagan dadkii oo garanaysaa dadkii oo ciiday oo dhalinyaradii la bisan yihiin waayeelkii haweenkii carruurtii dhammaan ayaa waxa dhacday in wadadii ay xiran tahay oo magaalada Muqdisho dhamaanteed la lugeynayo taasina waa dhibaato waxa muhiim in dadka wax loo fududeeyo waan ka tagay intaas waxaan salaamayaa u soo noqonayaa waalidkayga dhammaan ehelkayga qaraabada dhammaan iyo ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta joogaan midda kale waxaan leeyahay madaxda dawladdu inay dadka u tudho dadka masaakiinta aan socon karin qaarkood xanuunsanayaan caruur ay yihiin qaarkood aan guryaha ka soo baxayn oo maanta ugu horreysay maanta guryaha ka soo baxeen waxaan leeyahay dawladdu waxaan ugu baaqayaa iyo damgaraynta in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام جديد. وأكون فرحان أيام أنت تايم على العيد.
إلهي ينكيس إذا وأنا كم معي موعي قلت وقرأت فرح محمود وأنا كي من دموع أن تجاهل عفوا إيش نقوم على ترموك متكفر أنا هذا من أنا كم صار ولا كجار ولا من السيادة أنا سوري لكن هو ودينك أنا كم معي لكن وأنا فرحتني إن حقوش ما أنتي وأنا عيت هاي لما أنا مدة مسلمين تيجي يسوع ذلك سيد شغال وأنا فرحتني ما أنتي لما أنا مدة السودان لكن جرت جيجان لكن وقف لما أنا سلام يا مدة مسلمين لما أنتي ذلك سيد شغال أنا أصعنا معاكي معنا كأوجدي هاكا معنا قاب كل جزء نشرح معنا يا قاب ماشي أكثر ماشي أوسط نشرح معنا كأوجدي إنك سأتقني مدينة وحأصعنا حمرويني هاكا نجار لنا جرت أنت فدنا وجيتي هاكا مينا أصعني مينا كسعنا ما لناش نسك فدنا هاكا السلام عليكم ومد الصوماليين waxaan u salaamayaa ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan inay farxad nagu ciidaan ayaan rajaynayaa kulli inta muslim meel kasta uu joogo ciid wanaagsan ayna leeyahay حاجة كتير magaalada muqdisho معناها باور ما maanta baawur ma jirto wala lugeynaya shacabka magaalada aad u fiican lugtan aad ugu fiican tahay kullu baxsadaan السلام عليكم دمان waxaan salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ciid wanaagsan marka dhammaan waxaan salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ciid wanaagsan waxaan ku yideynaa Muqdisho magac ma sheega السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ciid wanaagsan كل عام وأنتم بخير dhammaan waxaan salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ciid wanaagsan dhammaan maanta wadooyinkana aad inoogu xiran yihiin waan iska lugeynaynaa dhammaan waxaan leeyahay aan badbaadi horta dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan kulley aniga maanta waxaan ku yisi farxad leh waxaan ku soo tukaday masaajidka isbaasiga ilaa intaan oo soo lugeynay si nabad ah ku soo socdi marka saas aliyeed waxaan leeyahay ummadda dhan farxadda nugula ciida magaaladana waa nabad kulley waxaan ciidamada ka codsanayaa kaliya in wadooyinka noo furaan si aan bajaajada u raacno meelaha dalxiiska awaan sokiya wareen ummadda muslimiinta cadaamada ay ku bilaabo maxamed muxidiin axmed waxaa ka imaaday degmada karaan adiga waa dareemi kartaa dhiidka naga socda xogaa lug yaraa jirtay cibaanta si fiican loo ciiday ciid laisku waafaqsan yahay oo muslimiinta meel bay joogaan ay marto isu ciideen ilaaha maantaas iskale waxaan salaamayaa dhammaan familkeyga meel bay joogaan dal iyo dibadba khaasatan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay nabad ku ciida nabad iyo barwaaqo insha Allah meel bay joogtaan oo ku maasantiin idinkana si aad bulshada aad isku gaarsiinaysaan shacabka magaalada Muqdisho ayaa u damaashaad tagay xaafadda Daarusalaam ee magaalada Muqdisho oo jawi nabdoon iyo mid wanaagsan iminkaba leh wariyaha goobjoog Maxamed Amiin Tafarra ayaa warbixintan inooga diyaariyay halkan waa xaafadda Daarusalaam ee magaalada Muqdisho waxaa u soo dalxiis tagay dad aad u fara badan maadaama maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciida waalidiin ayaa caruurtooda halkan u soo kaxeeyay si ay kaga qayb qaataan damaashaadka maalinta koowaad caruurtana waxaa ka muuqanaya farxad gaar ah marka loo eego ciidan qaar ka mid ah dadkan oo goobjoog la hadlay ayaa sheegaya dareenkooda maalinta koowaad ee ciida magacayga waa Shaafi Cabdirasaaq Cali maanta kulliba wallahi farxad zaaid aan dareemaya waxaan usoo ciid tagay usoo salaad ciid tagay macnaha salaada aan usoo aadnay deegaanka Daarusalaam farxadeeda maanta lama soo koobi karo soo habi السلام عليكم مجاعك ونجمع الحاشي وجوكتو مقدشة جارهان دار السلام وحن لي هاي عيد مبارك كل عام وانتم بخير ميلو البيجوجان مسلمين تدمانتو ذا ومالين آدي آد وفرحات بدن ما لسوكو بكر فرحات دينا انت لاكتا هاي فملكي يا لسعودة لعيدة مانتي ما شاء الله وفرحات آدي آد وين maxamed maxamuud oo ah gudoomiyaha xaafadan ayaa sidoo kale ka sheekeeyay marxaladihii xaafadan iyo sidoo kale sida ay tahay maanta maadaama ay tahay maalinta koowaad ee ciida salaam hadaan faahfaahin yar ka bixino waa xaafad runtii ka tirsan magaalada Muqdisho runtii
dad dadaalana ay ku sameeyeen maalgelin ku sameeyeen xaafadan waxay ka kooban tahay ilaa 6 xaafadood oo hadda la degan yahay guud ahaan guryaha ku yaal la iibsaday 6da xaafadood oo runtii ay u dhameystirayeen adeegyadoodii asaasiyaadka ahaa hadday tahay waxbarashadii iyo hadday tahay adeegyadii sidii biyihii korontadii internetkii guud ahaan adeegyadii nolosha la xiriiray iskuulkii ayaa ku yaala xaafaddu waxay leedahay xadiiqooyin ama beero ii sheeg loogu talagalay in lagu nasto ama carruurta lagu ciyaarsiiyo ayay leedahay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed soo dhawaada xaafadan ku soo dhawaada nagula ciida farxad ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xubno ka socda dawladda Soomaaliya ayaa gaaray xaafadda Daarusalaam si ay kala qayb qaataan bulshadii halkaas u tagtay damaashaadka maalinta koowaad ee ciida Maxamed Nuur Amiin goobjoog Muqdisho magaalada Buuhoodle ayaa maanta si weyn looga dareemay farxadda ciida maalinka koobaad shacabka ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa maanta waxay u dareereen masaajidda iyaga oo soo dukaday ciidul fidriga laba ragco ayay dukadeen shacabku iyagoo markii fagaaraha la isugu soo baxay kadibna dadka loo sheegayay fadaaisha kala duwan ee ciidul fidriga la xiriirta shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa u dareeray munaasabada ciidul fidriga oo maanta oo Jimcaha laga tukaday guud ahaan dalalka Islaamka gaar ahaan dalka Soomaaliya dadka oo ku kala tukaday goobo kala duwan iyo barxado kala duwan oo ku yaala magaalada Buuhoodle ayaa kuwada ugu badan waxay ku tukadeen garoonka kubadda cagta ee magaalada Buuhoodle halkaasi oo ay kaga soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada wajiyada dadka ciida ka qayb qaadanayay ayaa laga dareemayay farxadda munaasabada ciidul fidriga ayaga oo kadibna diraya salaan iyo hambalyo ay la qaybsanayaan asxaabtooda iyo eheladooda ku dhaqan daafaha dunida iyo dalka gudihiisaba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيد مبارك كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد المسلمين تدمان خاصة أمد الصوماليين ميلي شوكتبوا والسلام إنا وحان لنا عيد مبارك تقبل الله منا ومن صالح الأعمال وحان شوكنا بوهدلي وحان كعيدني مدنمو نبت جيليو برواقة إيا الروب نمعو إيا بشبش إيا برواقو سيدا ما يستيران بانو عيدني سيدا ما يستيران بانو وضا صوني وموافقتي أو إلهي سبحانه وتعالى إنه ما يستري قول صوماليا قول صوماليا قول صوماليا يوم مدة مسلمين تبى قول 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 السلام الله عليكم ورحمة الله الرحيم دمان ومدة الصوماليات ملوا البيت شوغان ما أنتوا حنقول همبليين يا عيد حنلاقي كل عام وأنتم بخير إلهي وحن كبرنا عماشين صوص مينين إله سبحانه وتعالى إنك أقبله إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكله إلهي نو سورة قرية مانتا إنتو رمضان نو سورة قرية عيدا إنا نبت كويدنو كل عام وأنتم بخير ضمان مسلمين تمل البيت شوكتو waxaan leeyahay ciidina ku gaara bashbash iyo barwaaqo halkan waxaan ka salaamayaa labadeeda waalid hooyo Xawa Xaaji Maxamed iyo Abi Cabdiraxmaan Yuusuf iyo dhammaan saaxiibada iyo asxaabtayda adduunka dacalada kala jooga anoo jeclaa maanta inaan ku iido laascaanood oo jeclaa inaan ku iido haddana ma isii suurto gelin insha Allah laakiin waxaan jecelahay ciida arfa fogtay isbuuciyada soo socda inaan tago oo laascaanood aan soo booqday rajaynaya laascaanood ay xorowdo dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidan ciideeda ku ciida bashbash iyo barwaaqo waxaan ku sugannahay garoonka weynaa ee magaalada Buuhoodle ee xabada stadium dhammaan muslimiinta daafaha dunida ku nool gaar ahaan Soomaalida waxaan leenahay ciid wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim codka ay wuxuu kale assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kullu caam wa antum bilkhayr dhammaan ummadda islaamka meelay daafaha adduunka joogto ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiinayaa inuu ka aqbalo soomkii iyo salaadii iyo sadaqaadkii rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kullu caam wa antum bilkhayr dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan waxaan ugu hambaliyeenaynaa ciideeda inay nabad ku gaaraan hambaliyo ciid wanaagsan dadka bukanayna ugu caafiyo kuwa jeelalka ku jirana inoogu soo daayo
waxaan kaloo ilaahay weydiisanaynaa dadka sool iyo sanaag iyo cayn degan inay xorriyad ku iidaan sanadkan sanadkiisa oo culayska u gaarkana ay ka dulqaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caamin wa antum bikhayr ilaahay waxaynu weydiisanaynaa ciidan ciideeda inuu nabadqab nagu gaadhsiiyo magacaygu waa Abtaan Xasan halkan waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal Allah minna wa salih al-a'mal dhammaan muslimiinta oo hambalyeynaya gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha maxkamadda cusub ee la doortay dhammaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay Cabdiwali oo soo kala qaatay isaga waxaan leeyahay hambalyo Cabdixakiim Cabdullaahi Xajmalado waxaan hambalyeynaya waxaan kaloo hambalyeynaya familygayga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Farxaan Maxamed Hayaan kalmada dhalinyarada gobolka Cayn halka waxaan ka salaamay dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan madaxda qaranka Soomaaliyeed madaxda maamul goboleedka Puntland ay ugu horeeyeen Cabdullaahi Cali Gaasi Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camay waxaan ka faa'iideysanay munaasabadda ciidda awgeed waxaan leeyahay oo u diraya hambalyo ciidamada difaaca ee Puntland ee kaga jira difaaca magaalada Tukaraq waxaan leeyahay waxaan rabnaa ciidan ciideeda iyo ciidda ka soo horeysay haddaba inaanu ku iidno magaalada Saxanood ee xarunta gobolka Sool hadii Ilaahay yiraahdo aad mubaarak ciid mubaarak taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal halkan waxaan ciidda munaasabadda ciidda awgeed aan salaan iyo tahniyad kaliya laaba u diraya dhammaan dhalinyarada gobolka Cayn iyo gobolada kale Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal ciidan ciideeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo dalkeena nabada iyo dawlad taamaan helo dhamaantood salaamantii assalaamu calaykum waraxmatullaah mayba laha ilaahay cibaadadii una cibaadaysani iyo soonkii iyo salaadii iyo tahajjudkii ilaahay intiisu noo aqbalo waxaan leeyahay ciid mubaarak magacaygu waa Jaamac Cabdi Maxamed waxaan leeyahay ilaahay ciideeda ha nagu gaarsiiyo dadweynaha muslimiinta meel kasta joogaan waan salaamayaa Ilaahay barakaatu dhamaan waxaan u hambalyeeynayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan shacabka islaamka meel kasta joogo waxaan leenahay ciid mubaarak hambalyo waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed shacabka degan Sool Sanaag iyo Cayn Puntland dhammaan iyo saaxiibadayda qaaliga ah ee reer Cadaad waxaan leeyahay hambalyo qaaliya idin soo diraya aad iyo aad baad maasantiin Khadar Cawl Ismaaciil Goobjoog Buuhoodle galmudug haddaynu eegno madaxweynaha maamulka galmudug ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada galmudug shacabka ku nool madaxweyne xaaf oo la hadlayay shacab kula dukaday masaajidka raqayga ee magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in mar walba loo baahan yahay isku duubnida inaan laga tagin isagoo hambalyo u diray dhanka kalena shacabka ku dhaqan deegaanada galmudug maalintii ciidul fitriga oo ah maanta maalintii ugu horeysay ayaa si weyn ummadda muslimiinta waxay ugu dabaaldegeen munaasabadda ciidul fitriga munaasabadan ayaa Soomaaliya dadweynaha maanta waxay ugu dabaaldegeen farxadda munaasabadda ciidul fitriga salaada ciidul fitriga ayaa madaxda ugu sareysa galmudug iyo dadweynaha waxay salaad ku oogeen masjidka jaamacatul raqay madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa munaasabadda ciidul fitriga ugu hambalyeeyay dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug ee gutay waajibaadkooda diiniga ah waxaanu ku baaqay in madaxda galmudug ay ka wada hadlaan wixii khilaafa maanta waa maalin farax leh waa maalintii ummadda muslimiintu kulligood iyagoo isku calool ay farxi jireen annagana waxaa loo baahan yahay inaannu faraxaas mid la mid ah ku faraxno waxaan kaloo jeclahay inaan ku baraarujiyo ummadda reer galmudug bishaan bisheedii waad ogtihiin gaarisaar bay ahayd waxaan aad iyo aad jeclahay inaan ugu naseexeeyo wixii reer galmuduga oo khilaafkooda khilaafka joojiyo walaalayaal kaalaya gogol baan idiin dhigaynaa waa idin soo dhowaynaynaa wax alaaliya wixii aad qabtaan baan idinka daawaynaynaa walaalayaal soo dhowaadaan leenahay khilaafkaa la joojiyo madaxweyne xaaf ayaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in la adkeeyo nabadgelyada
taa beddelkeedana ay qorsheynayaan in al-shabaab ay ka xoreeyaan deegaanada ay kaga sugan yihiin islamarkaana ay gaari karaan maamulka iyo shacabka galmudug guulo dhanka horumarka ah iyo waxwada qabsi. cabduqaadir muuse, goobjoog, dhuusamareeb. magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa maanta waxaa dadka ku nooli ay gudagaleen farxadda maalinka koobaad ee ciidul fidriga. jidadka waaweyn ee magaalada boosaaso waxaa isugu soo baxay shacab aad u fara badan oo isugu hambaliyeynayay farxadda maalinka koobaad ee ciidul fidriga, iyagoo dhanka kalena sheegay in loo baahan yahay mar kastaba in laga shaqeeyo isku duubnida iyo in si wada jir ah dadka loo taageero danta yar marka la eego iyadoo laga faa'iideysanayo fadliga bisha Ramadaan iyo sidoo kale ciidda farxadeeda. munaasabadda ciidul fidriga ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari. boqolaal dadweyne ayaa isugu yimid halkan oo ah farxadda weyn ee garoonka ciyaaraha kubadda cagta. mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda ciidul fidriga isla markaana dadweynaha kula tukaday salaada ciidda kubadda cagta ee boosaaso waxaa ka mid ahaa afhayeenka Puntland ahna wasiir dowlaha madaxtooyada ee Puntland Cabdullaahi Jaamac Quraan Jecel, gudoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhade iyo duqa boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam. waxaana dhammaan mas-uuliyiinta ummadasha ka hadla ay sheegeen in maanta oo kale ay tahay maalin ahmiyad weyn u leh dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland oo ay tahay maalin ku weyn qulubta dhammaan ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed. إلهي وحان ويديسننا مركز كوباد إنه إنا كأقبله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلهي من كأقبله عبادتي iyo khayraadkii tirada badnaa soo sameynay sida loo dardaarmayna dadkaas masaakiinta ah oo ehelka ah oo saddexda xuquuq leh iyo dhibaataysan iyagana in wax loo gurmado. كل عام وأنتم بخير. انت هدان الأعضاء إله عن كرة إلى عماشي بيشي رمضان وأن نصوصون مقالة كلها أن نكسرني انت عن كسر نقول يضرب بدل بدن كيف بيبر وقتها هاي وعموم الله إلى أجر سيادة المهلينا إلى هاي النكاح أقبله. هل كان واحد جوجا وسير دولة بنتلانا isla markaana ah afhayeenka dawladda reer boosood ee tabasho badan baa jirta. waxa weeye khayr baynu soo soonnay dal iyo dad dhammaan ummadda reer boosaasood maanta halkan ciidda isugu timi ilaantii waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaanu soo soonnay bishii Ramadaan, waxaanu soo gudanay waajibaadkii, waxaanu soo gudanay taraawiixdii, waxaanu soo gudanay tahajjudkii, waxaanu soo samaynay dhammaan acmaashii wanaagsaneed oo khayrka ahayd. waxaanu ilaahay ka baryeennaa dhammaan ummadda muslimiinta oo idin inuu ilaahay naga aqbalo acmaashii wanaagsaneyd eenu soo qabannay, in ilaahay camalkeenni uu ka dhigo camal wanaagsan, in ilaahay dhammaan muslimiinta oo idin meel walba ay joogaan iyo ummadda Soomaaliyeedba wixii dhibaato iyo kurba in ilaahay ka qaado. intaas haddii halkaas kaga gudbo waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ah, ummadda reer boosaasood iyo ummadda reer Puntland ciid mubaarak. afhayeenka Puntland oo madasha ka hadlaya sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda colaadeed ee ka taagan gobolka Sool oo dhawaan ay dirir ku dhex martay qaybo ka mid ah gobolka Sool ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland. waxaana afhayeenku sheegay in ka sokow colaadda dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood lagu hayo cabrin sida uu sheegay. waxaad la socotaan dadka ku dhaqan ceelaf weyn iyo Laascaanood labada magaalo oo hadda anagu waqooyiga Soomaaliya xisaabsanahay jaarina la ah labada dhibaato ka jirta. sidaas maanta anagu xornimada aan u haysano ilaahay ugu shukrinayno oo fadhino waa loo diiday dad Soomaaliyeed baa waxay leeyihiin ma lagama ogola. waxaa loo diidan yahay aragtida xorta ah, waxaa loo diidan yahay nabadda. taas waxay ku tusaysaa in weli Soomaaliya dadweynaha sidoo kale ka soo qayb galay munaasabadda ciidul fidriga ayaa waxaa iyaga oo la hadlay goobjoog TV ay cabireen dareenkooda ku aadan munaasabadan iyo sida ay ugu faraxsan yihiin. marka hore waan salaamayaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogto. marka hore magacaygu waa Maxamed Xarid Aadan ku naanaysan Maxamed Sadiiqos. maanta waa maalin farxadeed, waa ciidul fidri, waa ciid mubaarak. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay naga aqbalo soonkeena iyo salaadeena iyo acmaasheena ay soo sameynay. الرحيم magacay waa Ashkur Maxay Abdi oo jooga ama ku yidhi magaalada Boosaaso. waxaan dhammaan shaqada Soomaaliyeed kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga
halkan loo diraya hambalyada ciida ciidulfitriga halaya kulli caam wa antum bikhayr الرحمن الرحيم magacaygu waxa la rabaa Jamaal Daawud waxaan ku noolahay degmada magaalada Boosaaso aad baan ugu faraxsanahay ciida barakeysan waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr magaalada Boosaaso aad iyo aad baan looga yeeday ma sha Allah anagoo ku wada faraxsanahay halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad waxaan si gaar ah u salaamayaa abtigay Axmed Cabdo oo jooga Hargeysa inkastoo magaalada Boosaaso badi laga xagaabaxay oo sanadii hore ay kaga duwan tahay sidoo dadku ay ugu yar yihiin magaalada ayaa haddana waxaa jira dadweyne fara badan kuwaas oo maanta isugu soo baxay wadooyinka iyo goobaha lagu damaashaado madaxweynaha Jubbaland ayaa hambalyo u diray shacabka deegaanada Jubbaland xilli maanta magaalada Kismaayo laga ciiday maalinkii koobaad ee Ciidulfitriga madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed ayaa sheegay in loo baahan yahay in shacabku ay iskaashadaan ammaankana laga shaqeeyo sidaas oo kalena uu hambalyo u dirayo shacabka ku nool deegaanada Jubbaland أحمد محمد إسلام مدحوينها جبلان وبقلال ددوينا أيام مسؤولين كترسن مامولكا كولتو كدي حرونتا مدحتويدا مقالة كسمايو أيا همباليا ودري قودهان ومدى الصوماليات سلامينو سعافيس إذا ضدكو بلين وحال كتبنا وحبانا وكامل إسبدالله بلنا عصوينو إلهينا سنة كيسا كانوا يلوكا يسيو سنة سكة في عالية بشوشي برواق انت المرقى الكسر الكسر أمضى صوماليو على أمضى المسلمين تعالى وحي كتير محاولة إسكالي وحنا إسكالي انت بدل الرباطات العلاي او عدفك هو الجعمان كل ما دانا ما روح الى الله دوتين كل الميل لو عن الله سبحانه انت بدل الرباطات اللي سو قاعده اساسه سلا درادين هذه امرنا ان الله استقاميه توصلنا وحده اسم الدنيا وحده ونايا وبدو هيلسا لكن مركا الى الاهلال اما المسلمين الاهلال اي الرباطات وحده كشقيسو waxaad garan kartaa waxa soo gaarayay waxa uu noqonay mar uu ka hadlayay dagaalka ay Jubbaland kula jirta dagaalamayaasha al-shabaab ayuu sheegay madaxweynuhu inay muhiim tahay in ciidamada lagala shaqeeyo dagaalka ka dhanka al-shabaab sida uu hadalka u dhigay dagaalada dhacaya iyo shabaab waxa lagu jiray kuwaas insha Allah way baadnay way duwayaan hadii iyagana ilaahay khilaaf madaxweynuhu ku soo إنه هذا لنا الاستقامة أو كوه الناسكتان أيضاً يبادان لغا صوبات يوانا كوه شعب كيوه ياشون عن كوه شقينه كوه فتاروه كل عالي وكوه سواء عاليان وحانو كان قلورنا شكي قانا وإسكال قرية كوه وحيستا أو إسكال قران إنه درك عصر قيسران وصولي وإنه نطل كوه نتشوه نطل لدى عالم دون عدين هايقا يعني عصرتان ما أنتو أكلا درك إلهي وحسين وحب حيان Soomaalida waxaa jeersiin baahan hadda ganacsatada joogtay anuma qarkood hadda soo baxay shaqada aaga way keenayaan inay wax bixistaan aad bay u adag gobolka Hiiraan hadaynu eegno magaalada Beledweyne ee gobolkaasi shacabka ku nool ayaa isugu soo baxay fagaaraha kala duwan waa fagaarayaasha kala duwan ee magaaladaasi xilli maalmihii la soo dhaafana ay dadku ka barakacayeen magaaladaasi sabab la xiriirta fatahaadii webigu uu sameeyay magaalada Beledweyne dadka ku ciidaya tiradooda marka la eego waa ay ka yar tahay sanadihii la soo dhaafay maadaama saameyn xooggan ay ku yeelatay amaba uu ku yeeshay fatahaadii webiga Shabeelle uu ka sameeyay magaaladaasi maalinta koobaad ee Ciidulfitriga ayaa maanta looga dabaaldegayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana boqolaal shacab maanta ay ku tukadeen masaajidda kala duwan ee magaalada Beledweyne qaybaha kala duwan ee bulshada oo u badan dhalinyaro iyo carruur ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Beledweyne kuwaasi oo ay ka muuqato farxadda maalinta koobaad ee Ciidulfitriga qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ee u dabaaldegaya maalinta koobaad ee Ciidulfitriga oo aynu kula kulannay wadooyinka Beledweyne ayaa waxa ay ka hadlayaan farxadooda ku aadan maalinta Ciidulfitriga magacaygu waa jaamac ciid wanaagsan dhammaan islaamka meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay soonka naga aqbalo Beledweyne si wanaagsan looga ciiday bismillah magacaygu waa Cabdi Cadow waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan nadiid xuseen sandoon kana mid ah bulshada rayidka ku dhaqan gobolka Hiiraan waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kasta ay joogaan
ciid wanaagsan ciid mubaarak magacaygu waa maxamed yuusuf cismaan waxaan ku noolahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak alif marra ciid mubaarak waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogin ciid wanaagsan magacaygu waa Abdicasiis waxaan joogaa beledweyne waxaan u hambalyeeyaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan ku nool magaalada beledweyne waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed كل عام وأنتم بخير أنا محمد حسين magaalada beledweyne aan ummadda muslimiinta waxaan dhahayaa ciid wanaagsan السلام عليكم يا عيد ومهدي عثمان سيدو جدا ما تساعد بانو وعدي مقالة بلدوينة فرحة مصو كوي كرنا وحن لنا هاي سونكي أنا نصوصوني الله نقدي وفي لقى أخبره عام وأنتم بالخير عيد مبارك عيد ونكسن المسلمين تمروا بيجوا محلية فرحة عيد ونكسن دمان المسلمين كاران ومن الصوماليات magacaygu waa yuunus cabdulaahi cilmi oo ku magac dheer biyuuraan waxaan joogaa magaalada beledweyne shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa ciidani waxay uga duwan tahay ciidihii hore waxaana dadku ay ka soo kabanayaan dhibaatooyinkii ay u geysteen fatahaadihii xoogganaa ee webiga shabeelle dhowaanahan uu ku dhuftay magaalada beledweyne saamaynta fatahaadahaasi ay ku reebeen gudaha magaalada ayaa si aadan looga dareemayaa shacabka iyo weliba magaalada beledweyne cabdirasaaq maxamed cabdulaahi goobjoog TV beledweyne shacabka ku nool magaalada Cadaado iyo madax ka tirsan maamulka Galmudug ayaa si wada jir ah ugu ciiday magaaladaasi iyadoo uu jiro khilaaf siyaasadeed oo ka jira deegaanada Galmudug ayaa haddana madaxda maamulka Galmudug oo ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi iyo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir waxay dadka magaalada Cadaado kula ciideen magaaladaasi iyagoo salaadii sunnada ahaydna la dukaday dhammaan dunida muslimiinta maanta waxaa looga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee ciidul fitriga magaalada Cadaado gobolka Galgaduud waxa ay ka mid tahay meelaha maanta sida weyn looga dareemay farxadda ciidul fitriga iyadoo dadka degan magaaladan la arkayay iyaga oo raxan u socda isuguna hambalyeynaya maalinta koowaad ee ciidul fitriga sidoo kale goobaha lagu cunteeyo ayaa dib loo furay kadib gudashadii bisha barakeysan ee Ramadaan madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabi gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir qaar ka mid ah xildhibaanada wasiirada iyo sidoo kale maamulka degmada Cadaado iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa maanta salaada ciida waxa ay si wada jir ah ugu oogeen barxad ku taala agagaarka madaxtooyada degmada Cadaado mas'uuliyiinta Galmudug ee ku sugan magaalada Cadaado ayaa ugu baaqay shacabka reer Galmudug midnimo iyo wada jir iyo in iska kaashadaan horumarka reer Galmudug waxaa la socotaan in midmadow yaryar ama khilaaf yar uu ka dhex jiro madaxda maamulka Galmudug runtii ayadana waa iska qadar Ilaahay haddaan dadku waxba ka dhaxayn isma khilaaf lahayn waxa keenaya khilaafka iyo maaragtay midmadowga waxay tahay shaqada ummadda ka dhaxaysa waaye ayadana sida ugu dhaqsaha badan insha Allah waxaan rajaynaynaa waqtiga Ilaahay ugu talagalay inay ku soo dhamaato adinkana waxaa idinka rabaa midnimada iyo maaragtay iyo ilaalinta wanaaggaas iyo tiirarkaas ay ku taagan tahay Galmudug oo dhan meel walba oo magaalo walba oo ka mid ah Galmudug waa tiir ka mid ah tiirar Galmudug haddii marka halkaas tiir oo dhib ka yimaado dhammaan Galmudug oo dhan dhibka ayaa ka imaanaya oo ayadoo dhan maaragtay dhibkaas ayaa gaaraya gudaha magaalada ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa farxadda ciida iyadoona carruurta ay da'doodu ka yar tahay 10 sano la arkayo iyaga oo magaalada ku dhex soconaya isla markaasina wata agabka ay carruurtu ku cayaaraan sidoo kale goobaha loo dalxiiska taga iyo hoteelada ayaa waxaa buux dhaafiyay dhalinyaro doonaya inay isku sawiraan aniga waa Anisa Caliya si fiican u iidna maanta ma sha Allah si wanaagsan u iidna waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan eheladeyda dal iyo dibad jooga oo reer Rooble Cadde loo yaqaano waxaan aad u salaamayaa gabadha noogu weyn ee walaashay Xaawa Axmed Rooble iyo carruurteeda waxaan kaloo sidoo kale salaamayaa dhammaan asxaabteeda qaaliga ee dhammaan daafaha dunida ku nool dadweynaha dunida daafeeda ka salaama dhammaan salaan qaali ah salaamaya maanta ciid wanaagsan dhammaan inta waxaan ka salaamay hooyada iyo aabaha iyo walaalaha iyo saaxiibada iyo dhammaan inta muslimiin oo dhan marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta ciid ah waxaan joognaa degmada Cadaado dadweynaha oo ku nool magaalada Cadaado dhamaantood maanta waa wada ciidayaan dadweynaha waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan aqyaartana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal annaga si fiican baan u ciidnay Cadaado si dhammaystiran baa loo ciiday dhammaan wax kala haray ma jiraan dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leenahay ciid wanaagsan كل عام وأنتم بخير
ilaaha naga aqbalo bishii ramadaan ee noo soo dhammaatay ictikaafkii iyo acmaasha aan soo sameynay ilaaha mahad iska leh na waafajiyey inaan dhammaysanno bishii barakeysaneed ee ramadaanka maantana waxaan ku jirnaa farxaddii ciidda ayaan ku jirnaa intaa kadib waxaan aad u mahad celinayaa u hambalyanayaa bahda goobjoog iyo wariye cabdirasaaq cadaala kullu caam wa antum bikhayr ciidda maanta waan ku faraxsannahay meel barxada ku soo tukanay madaxdii ugu sarreysay galmudug maartay nala tukatay waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga aqbalo cibaadadii barakaatu kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan waxaan aad ugu faraxsanahay maantay ciidda ciidul fidriga maanta anakoo joogna magaalada Cadaado soo dhawaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu soonkii naga aqbalo dhanka kale xildhibaanada galmudug ee ku sugan magaalada Cadaado ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer galmudug waxay u direen hambalyada maalinta koobaad ee ciidul fidriga maanta waxaan ku ciidnay magaalada Cadaado oo runtii aan shacab aad u tiro badan iyo anagu meel bannaan ku ciidnay ilaahay baa mahad iska leh noo suurtageliyay amnigaas aan kula ciidnay kumanaan kun oo qof meel barxad ah oo bannaanka magaalada ku taala runtii waxaan leenahay dhammaan waxaan u hambalyeynaa ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiintaba gaar ahaan dadka reer galmudug meel kasta ay joogaan maanta oo ah maalin aad iyo aad u weyn ummadda muslimiinta maalin ciidul fitri ah waxaan salaamahayaa ummadda muslimiinta meel kasta joogaan guud ahaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan reer galmudug waxaan leeyahay ciid wanaagsan taqabbalallahu minna wa minkum saalih al-a'maal anaga xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug kuna sugan magaalada Cadaado waxaan halkaan ugu madaxweynaynaa dhammaan ummadda islaamka ah ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dhammaan iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug oo maanta aan ku ciideyno ciid midaysan kullu caam wa antum bikhayr reer galmudug iyo Soomaalida kale waxaan leeyahay wadajir ay laba gacmood wax ku goyn karaan aan isu heshano walaalayaal dhibaatada galmudug hadda ay ku sugan tahay waxaan rajeyn doonaa mar dhow insha Allah inaan ka bixi doono ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajeynaynaa Soomaaliya guud ahaanteeda inteeda kale inuu ilaahay culayska dhibka hay uu ka qaado si kastaba ciidda ayaa gobolka galgaduud bartamaha Soomaaliya si wadajir ah maanta looga dukaday iyadoo aysan jirin deegaanada galmudug maanta hal degmo oo laga sooman yahay cabdirasaaq al-cadaala wariyaha goobjoog magaalada Cadaado galgaduud Soomaaliya wadamo badan oo dunida ah ayaa maanta waxaa u bilowday farxadda maalinta koobaad ee ciidul fidriga wadamo badan oo caalamka ah maanta oo jimcaha waxaa u bilaabatay maalinta koobaad ee ciidul fidriga iyadoo qaaradda Afrika iyo dadyowga kale ee ku nool qaaradaha kala duwan ee dunida looga dabaaldegay maalinta koobaad ee ciidul fidriga dalalka wadamada islaamka ah ee dadka muslimiinta ay ku ciideen waxaa ku jira Morocco, Algeria, Tunisia, Libya iyo wadamo kale waxaana meelo kala duwan oo ay ka mid tahay Turkiga, Qatar, Sacuudiga iyo wadamo kale iyaguna sidaas oo kale shacabka muslimiinta ah ay u dabaaldegeen farxadda maalinta koobaad ee ciidul fidriga guud ahaan ummadda islaamka ah oo ku sugan dalalka caalamka ayaa bilaabay dabaaldega bisha Shawaal kadib markii 29 maalmood ay soo soomeen ay soo soomeen qaar ka mid ah dalalka islaamka oo ay ka mid yihiin Indonesia iyo Pakistan ayaa ku dhawaaqay in maalinta berri ah 1da bisha Shawaal sidoo kalena loo dabaaldegayo munaasabadda ciidul fidriga dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida weyn ciidda looga dukaday farxadda ciidana looga dareemayo oo meelo kala duwan oo gobolada iyo caasimadda ahna dadku ay farxadda ciidda isugu hambalyeynayeen guud ahaanna inta ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii oo aad kala socoteen goobjoog anigoo ah Cali Aadan Muumin ayaana idiin waramayay kulanti dambe sida iyo nabadgelyo